labaatankii qofba waxaa la qiyaasaa hal qof inuu ka gaari doono 100 sano haddaan kasoo qaadno halkaas qof inuu yahay adiga 10 sano ugu muhiimsan noloshaada waa goorme waxaan muuqaalkaani kaga hadli doonaa 10 talo ama waana aan jeclaan lahay inaan siiyo 20 jirkeyga waa walaalkiina iyo saaxiibkiina shuuta oo idin leh daawasho faa'iido leh talada koowaad waxay noqon lahayd wax walba su'aal ka weydii waxaa laga yaabaa inaad isleedahay aqoon badan ma lihid markaad ka yartay 20 sano taasina waa run laakiin micnaheedu ma ahan inaadan su'aal weydiinin oo aadan raadinin waxaadan aqoon u lahayn su'aal inaad weydiisid waa qaab ka mid ah wadooyinka wax lagu barto bini'aadankana jahliga kaga baxo qof walba wax uu sheegi kara waa inuu awood u lahaadaa su'aalahaaga inuu jawaab ka bixin karo badanaa haddaad su'aal weydiisid jawaabta waa helaysaa haddaad awood u heli weysid inaad qof su'aashid su'aashaad qabtid ama aadan ku qaricin jawaabta lagu siiyey aad naftaada weydii oo raadi jawaabta talada labaad waxay noqon lahayd waxaad dabbiqdaa faa'iidada aruurta Albert Einstein wuxuu leeyahay faa'iidada aruurta ama compound interest waa mucjisada sideedaad ee adduunka qofkii fahma wuu hela ama wuu ka faa'iidaa qofkaan fahminna wuu baxsha ama waa laga qaadaa wax walba ku keeni kara faa'iido weyn mustaqbalka waa waxaad bilowdid samiskiisa maanta maalin walbana aad ku dartid wax yar ilaa iyo muddo dheer waxaa fikrada si qurxan u sharxay bug loo yaqaano the compound effect waxaad ka fikirtaa waxaad isleedahay mustaqbalka faa'iido weyn ku keeni doona bilow inaad ka samaysid wax yar maalin walba maalinta ku xigtana wax yar ku dar muddo kadib waxaad arkaysaa waxaad sameynayso aruuray batay oo kor u sii socda ama ku qabsoomay taasna waxay ku dhacday adoo maalin walba sameeyay oo waqti dheerna waday intaas waxaad ku dabaqdaa wax walba oo faa'iido ku keeni kara sida almiitada wax aqriska lacag aruurinta iyo wax walba la mid ah talada saddexaad waxay noqon lahayd jaamacadda kaliya wax laguma barto intaadan jaamacadda bilaabin xiisaha iyo xamaasada jaamacadda u haysid waxaa laga yaabaa inaad u fahantid wax walba aad barin doontid oo aad ku shaqayn doontid inaad lagu bari doono jaamacadda laakiin xaqiiqadu saas ma ahan waagaan aadi jirnay iskuulka waxaan u baranay inuu macalinka noo sharxo mawduuc oo dhammaystiran kadib mawduucuu sharxay su'aal naga weydiiyo dabcan marka laga reebo xisaabta oo waxa casharka lagu sharxay iyo waxa imtixaankana lagu keeno aanan shaqo isku lahayn laakiin jaamacadda takhasuskaaga inta ugu muhiimsan waxaa laga yaabaa inaa wax yar lagaaga sharxo ama adiga lagu wada diro oo intaad soo raadisay oo aad soo heshay su'aal laga weydiiyo waa inaa intaad diyaar u ahaatid oo aad isbartid saad u raadin lahayd mawaadiicda la xiriirta takhasuskaaga iyo wax walba aad isleedahay wax uu ku tari doonaa maanta waxaan internetka ka bartay macallin jaamacadda joogo inuu i baray ilama ahan waxaan wax ka bartay oo ilaa hadda aan ka bartaa YouTube Google Udemy Coursera iyo Skillshare talada afraad waxay noqon lahayd tijaabi hiwaayad ama hobby cusub waxaa jiri doona waqti aad firaaqo noqon doontid ama aad break yar ka qaadan doontid waxbarashada iyo shaqada mararka qaar waxaan wada baahanahay inaan ka dhuumana stresska nolosha iyo culayskana wada saaran sidaa darteed waxaan u baahanahay hiwaayad ama hobby aan ku qaadano waqtigeena firiiga hiwaaya waa carabi hobbyna waa english soomaaligeeduna waa anigu waan waay haddaad taqaanid commentiga igu qor markaan ka yaray 20 sano haddaa la weydiin lahaa hiwaayadaadu maxay tahay waxaan ku jawaab ma aqoon lahayn ama waxaan ku jawaabi lahaa inaan ciyaaro kubad iyo fadhi ku dir haddaadan hor u lahayn waxaad ku dadaashaa inaad samaysatid hiwaayad kugu soo kordhisa aqoon fikir hal abuur iyo baashaal talada shanaad waxay noqon lahayd khibrada ka muhiimsan lacagta qof khabiir ah waa qof samaynta ama aqoonta shay gaar ah aad ugu fiican waana shayga ugu muhiimsan oo lacag lagu sameeyo waxayna ku imaataa sanadaha iyo waqtiga dheer qofka uu ku qaato samaynta shayga haddaadan lahayn khibrad oo aadan soo shaqaynin muddo dheer oo haddana aad ku haminaysid inaad heshid lacag badan naftaada dib ugu laabo waxaad xoogga saartaa bilowga saad khibrad ku heli lahayd kadib ka fikir lacag qaas ahaan markaad tahay arday waxaad ku dadaashaa wax walba la qaban kara inaad ka shaqaysid oo aad ka heshid khibrad iyo wax yar lacag talada lixaad waa afkaartaada la wadaag dadka saad u heshid dad kugu fikir ah oo aad wax ka faa'iidid waa inaad fikradahaaga la wadaagtid dadka ku dhow iyo qof walba aad baratid ha ka xishoonin inaad sheegtid ra'yigaaga aad soo bandhigtid fikradahaaga tusaale ahaan ra'yigaad ka qabtid muuqaalkan waxay ugu sheegi kartaa commenting waa muhiim inaad samaysatid asxaab aad tihiin isku fikir iyo kuwa kale ka fikir duwan oo aad kala faa'iidaan waxaadna raadisaa dadka fikradahaaga dhiirigelinaya hadduu wax ka qaldan yahay ku saxayo talada toddobaad caafimaadkaaga ka fikir markaad tahay 20 jir waxaa laga yaabaa wax caafimaadkaaga dhibaya adoo sameynaya inaadan dareemin dhibaatada isla markaas haddaad sigaar cabaysid ama aad cunaysid cunto aan isku dhagatirnayn haddaad dhafartid oo aadan qaadan hurdo fiican markaad 30 kor u dhaaftid aad bilaabaysaa inaad dareentid dhibaatada iyo saameynta caafimaadkaaga ku leedahay haddaad bilowgii ku dadaashid inaad samaysid nidaam fiican oo wax walba oo dhibaato ku keeni kara ka saartid noloshaada gadaala naftaada ugu mahadnaqi doontaa balan way talada sideedaad ha isku qabanin dhowr shay hal mar laba shay inaad isku qabatid waxay la mid tahay adigoo labada shay natiijo fiican ka keenin khaas ahaan hadday yihiin laba shay muhiim ah adoo shay samayntiisa ku mashquulsan haddaad u jeestid shay kale wuxuu raba ha noqdo oo aad dib ugu soo laabatid shaygaad hore u samaynaysay waxay kugu qaadanaysaa waqti inaad dib ugu soo laabatid waxaad samaynaysa waqtigaasna waa waqti ka saaray waxaa fiicnaan lahayd waxaad gacanta ku haysid horta inaad dhamaysid adoon wax kale ku mashquulin kadib hawsha ku xigta aad xooga saartid sidaa darteed iska ilaali adoo wax qabanaya inaad ku mashquulshid shay kale talada sagaalaad naftaada abaalmari mushkilada maalin walba ku qabsata oo aad xallisid hadaf walbaad leedahay oo aad gaartid naftaada ku abaalmari oo dhiirigeli maxaa yeelay adaa la socda kaliya oo ka warhaayo taasna wax badan ay ka caawin doontaa inuu wax qabadkaaga bato
energy ayna dib u soo laab marka kaliya aadan u baahnin abaalmarin waa markaad qabanaysid waxaad jeceshahay oo aad ku farxsan tahay ku dadaal inaad heshid shaygaas talada tobanaad aakhiraha ilaawi waxaan hor u soo sheegay oo dhan qiimo ma lahan haddaadan aakhiradaada u shaqaysan oo mar walba niyada ku haynin hadafka ugu muhiimsan aan u joogno adduunka waa inaan ka shaqeyno imtixaanka aakhir sidaan ugu guulaysan lahayn taana waxaan ilaahay ka baryaa inuu na wada waafajiyo adina waxaan kaa codsanayaa inaa ila wadaagtid talooyinka naftaada siin lahayd waqtiga ay la qaadatay aad ugu mahadsan tahay haddaad ka heshay muuqaalkan la wadaag asxaabtaada saarna like soo u gaar dad badan waa walaalkiina iyo saaxiibkiina shuuto idin leh mustaqbal wacan